Colonel Duuliye Sare Maxamed Sheekh Ibraahim Yuusuf waxa uu ka mid ahaa duuliyaashii sare diyaaradihii militariga ee Soomaaliya waxaana uu wadi jiray diyaarad xamuulka ahayd oo militarigu ay lahaayeen waxa hadda uu ku nool yahay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden Corneylka ayaa waxaan kula xidhiidhay khadka Zoom-ka waxaan ka weydiin doonaa laba dhacdo oo mid goobjoog u ahaa mid kalena isagu ku lug lahaa tohore ayaa waxa ay tahay inuu wax ka ogaa dil lagu fuliyay 43 qof oo ganacsato u badnaa oo magaalada Burco dawladii militarigu ay ku dishay sanadku markuu ahaa 1984 bishii December arrinta kalena waxay ahayd diyaarad militarigu lahayd oo isagu waday oo kuwa xamuulka qaada oo ka dajiyay bishii May ee sanadkii 1990 dalka Jamhuuriyadda Djibouti Corneyl Maxamed marka ugu horeysa waxaad ku soo dhawaataa telefishanka Saab waa maasantahay Maxamed Sheekh Ibraahim Yuusuf Maxamed Sheekh Ibraahim Yuusuf gaashaan la sare ayaad ahayd sidoo kale duuliye ayaad ahayd bal waxaad ka warantaa marka ugu horeysa arrintii dilka ee lagu fuliyay nimankii ganacsatada u badnaa ee reer Burco wixii aad ka ogayd adigoo aan filayo in diyaaradaadu ay soo qaaday General Maxamed Xaashi Gaani oo ahaa taliyihii haystay gobolada waqooyi waqtigaasi ee militariga waxaan ka soo qaadnay General Gaani Hargeysa waxaana keen Muqdisho anigu markaa ma aan ogeyn wuxuu u socdo marka Muqdisho waxaan soo deganay kowdii doornimo dabadeed wuu baxay Gaani wuxuu aaday xagga iyo bila Soomaaliya dhowr saacadood kadib ayuu ku soo noqday garoonkii anigoo markaa qadeeyay oo iska nasab dhahaya ayaa la soo toosiyay liiday dib baad u noqonaysiin xagga iyo Hargeysa iyo Burco markaan garoonkii aan nimid waxaan ku arkay in dadeero iyo koox la soo xulay oo ah nimanka garsoorayaasha iyo dadka xukuma oo markaa de Muqdisho laga kaxaysanayo ma aha kuwii joogay Burco markaa waan duulnay waxaan ka degnay magaalada Burco markay tahay 5tii galabnimo ayaan Burco ka degnay markaan Burco ka degnayna markiiba indha deero iyo nimankii maxkamadaha iyo uu soo kaxeeyay Muqdisho ka soo kaxeeyay u badnaa dadka reer Muqdisho degan waxa weeye markiiba waxa la tagay maxkamadii la tagay maxkamadii waxay ku dhameeyeen 2 saacadood gudahood in dadkii dil lagu xukumo dadkaas oo ahaa baamushal iyagoo lagu eedaanayo waxay siiyeen saad iyo maaragtay raashid amba lacag ahaato ay ku iibsadaan rasaas dadka wax cadayna oo markaa meesha yimid oo amba maraga ma jirin marka ayay siiyeen raashinka iyo rasaasta waxay leeyihiin raashinka lacagta lagu iibsado rasaas waxay leeyihiin SNM-ta ayay siinay jireen baa laakiin wax cad oo meesha la soo dhigay ma jirin oo la yiri maaragtay waxaan amba maraga la keeno oo la yiri waa lagu arkay hebel iyo hebel tuun buu iska ahaa wuxuu u badnaa nimankii 43 ahaa 43 ahaa waxa lagu xukumay markiiba dil in aroorta subaxnimo markaana waa 8 fiidnimo weey waxa waaye wax ka yar galin ilaa maalintu markii maalin la yiraahdo maalintu waa 24 saacadood habeen iyo dharaarba ayaa ka kooban yahay maalintu marka muddo gaaban baa nimankii lagu xukumay marka waa ku jira marka ninkan indha deero 43 ku jira aroortii 8 aroornimo ayaantii ku xigtay intaan soo degna maahe kii waxa la geeyay garoonka in la toogto dabadeedna waxa yimid telegram baa ka yimid xagga iyo madaxtooyada la leeyahay ha laga reebo ninka indha deero nimankii sidii baa lagu toogtay iyadoo waxba wax cadayna meesha aan la keenin ayaa 42 baa sidii lagu toogtay markaa dabadeed buu yidhi geeyay Hargeysa markaa aan u dhaqaaqnay Hargeysa markaan tagnay Hargeysa wada daruuray ahayd roob baa ka da'ayay calaamooyinka la tusay waxa weeye markii hore aan degaynay maaragtay Burco markaan booxii Burco soo dhaafnay garoonka aan ku soo socono iyo batarigii diyaaraddu qarxay
diyaaradu dalqiiba markaa cagaa waxay dhigatay meeshuu ka bilaamayay garoonka oo ahayd laamiga amba sibirka garoonka ay ku ordo markay degayso diyaaradda amba ay kacayso halkaas dhibaatadaasaa ka jirtay markaa waa calaamo sheegaysa dadkan meesha socdaa in aan ku gebiyenba macna aniga aan ku jiro xaqdarro inay waxan tahay markii nimankii la toogtay waxaanu soo baxnay hargeysa markaan soo dul istaagnay hargeysa garoonkii waan arki weynay diyaaradda saacadeedii oo dhan baa iska daba wareegayay waxaan garan weynay diyaaraddu ma xagga sare u socotaa mise xaggan hoose iyo dhulka diyaaraddu waxay socotaba markii aan 500 ay noo hadhay oo mitir baa waxaan ka arkay jiingalihii suuqii bacaalaha ee hargeysa markaasaan diyaaraddii kor soo qabanay kor baan aadnay waan degnay ninkii ila socday waxaan ku yidhi waniyow shalaati shukri tuko shalayna saasaa dhacday wadigii ogaa oo baterigaa qarxay maantana waa kaa in yar baan ku siganay meeshan qofku hadduu la joogo dad maaragtay dulan sameynayo oo wax aan xaq ahayn aan samaynayn adiga laftigaa waxaad ka tahay nin ka qayb galay dulankii marka saasaa meeshii ay ku dhammaatay muqdisho aan nimid muqdisho marka intaan niman dad badan ba waxay ka ordayaan dagaalkan iyo duqayntan magaalada lagu wado dadkii carruurtoodii iyo xaasaskoodii iyagoo watay waxay soo buuxsameen garoonka diyaaraddu waxay qaadaa 60 qof waxaan qaadnay oon xasuusta ilaa hadda 120 qof waxay fadhiisteen xitaa kuraasta dhexdooda dadaan kuraas aan lahayn baa jiray carruur yaryar baa ahayd inta badan miisaanka waxaa la xisaabaa qofka caadiga ah oo reer yuruba 100 kiilo miisaanka culaysku qofku leeyahay 50 meelahaas saa darteed baan u qaadnay 120 qof garoonka markaan ka deganay muqdisho waxaa la yidhi ninkaan waa sidee diyaaraddu ma Boeing bay 707 tii diyaaraddii Soomaaliya Airlines say waxaan wadada meesha uga soo degeen meesha su'aalo badan baa ka yimid oo dad badan oo xanaaqsan marka aniga waxaa ila socdaa oo aan soo qaaday nin 15 carruur watay xaaskiisii iyo sadoodii iyo waxaa la dhahayay Xuseen Xaaji Axmed ninkaasi Saacad Muusuha reer Gadiida ninkaan London buu degan yahay markaan garoonka ka soo qaadanay dad baa qaylinaya oo ahaa aan ahayn dadka Soomaaliland oo dhahaya ninkaan wuxuu guraay dad SNM ayuu diyaaradda saaray aniga muqdisho markaan tegay warqad waaban hayaa imika oo sheegaysay eedeyntaa la igu eedeeyey xafiiskaa la iga yeelay markaa waxaan dadkaas waa dad Soomaaliya weeye baan sababtoo ah waa in dadka la qaadaa iyo maantida dadkan carruurtan yaryar ee 10 jirka iyo 11 iyo 7 jirka arrinkaasi dhibaato badan bay ii keentay maxamedow halkaa aanad gaadhin adigu diyaaraddaadu may ahayn kuwii rakaabka ee rayidka ahaa waxaan filayaa inay ahayd diyaaradihii loo yaqaanay shabeelleyda ee militarigu ay lahaayeen xamuulka sideeba diyaaraddaasi ay u qaadi karaysaa dad ciidamada aan ku lug lahayn oo rayida waagii horeba waan qaadi jirnay dad rayida waan qaadi jirnay oo meeshan kama jiro maaragtay international law oo dhahaya dad rayida ma qaadi kartid arrinkaas su-aasha aad weydiisay marba waxaan ka tagnay oo aan qaadnay maadaama ruushkii la eriyey diyaaraddu waxay u baxlayd seed u soo qaadi kartaa bale diyaaradda waa diyaarad military diyaarad maaha lisans leh oo dad rayada inay qaado ah marka saa darteed waan qaadi jirnay mar walba amba gudaha noqoto amba dibadda waana sharci darro waaye saad hadda aad sheegaysa waxay igu maqaalo ah in adiga iyo aad isa seegteen raggii militariga xukumayay iyo waliba barasaabkii gobolka waqooyi galbeed ee waqtigaasi bal hadda sheekadaasi noo guud mar sheekadu waxay ku dhacday diyaaraddu inta badan lacagna way keeni jirtay lacago fara badan oo aad u fara badan oo dhowr malyan ah diyaaraddu qof kale ma raaci jirin muqdisho markaan ka keenno iyadoo buuxda oo lacag buuxda ayaa la kala jiray maadaama ay la isticmaali jiray siyaasad ahayd dadkan cararay lacag ku soo geliya oo hadda ka hor taasi ay guul ay ka keentay jabhaddii Cabdullaahi Yuusuf dad badan in lagu soo geliyey lacag oo dib u soo noqdaan iyo garaado waxaa la isku dayay marka SNM-tana in tii mid la mida lagu dayo laakiin arrinkaas way socon weyeen markaan lacagta keenno dad dhaawaca la qaadi jiray dad shibil oo dumar iyo ay dad wataan
baa marka meeshii la keenay arrinkaas marka waan isku jiilnay waxaan idhi warniyo dhaawaca ha la saaro way diideen nimankii saraakiisha ee ahayd dowladda weliba rashiimka dadka reerka xukuma ay u badnaayeen waxay yidhahdeen hablahaad qaadaysaa iyo dadka shibilka anigu markaa waxaan la hadlay ninka ciidanka cirka xukuma maxamed nuur dhuudhi la jiray hadda wuu dhintee ninkaasaa warniyo diyaaradii caynkaasaa mushkiladaasaa jirta isagoona dhinac walba aan fiirin oon fakirin buu yidhi diyaaradda albaabada u xil iyadoo maran muqdisho ka soo dega aniga marka sidii baan yeelay nimankii meesha joogay waxay u tegeen ninkii ciidanka xukumay hargeysa ninkii baa waxaa lagu yidhi war nin caynkaasoo jiro oo wadaad oo ayatullah oo aan dadna waxba ka maqlayn oo wuxuu doona samaynaya hayaantii labaad markaan mid wuxuu yidhi xabad baan kugu dhufanaya toos ninkaas wuxuu ahaa jenaraal axmed warsame maraxaan buu ahaa arrinkaas aniga aad bay igu dhalisay inaan maaragtay dhiigaygu uu kaco in uu qof maaragtay jarana oon xaq u lahayn inuu qof iska handado waan ku dilaa uu yidhaah muqdishoaan ku noqonnay waxaa dhacday fakis baa laga soo daba diray ninkan dad badan buu guray oo la yaqaano oo jabhadda SNMta maxay ahayday lukule oo xaasadkoodii ay yihiin ninkii aan markii hore aan sheegay baa ka mid ah carruurtiisa ninkaana anigu waan aqaani ma ahayn nin SNM iyo meelaha tegey xitaa hadduu ahaaba dee carruurtu shaqo kuma leh qof kale loo qabto aabahood baa dembiilaha haddii lagu caddeeyo xitaa carruurtu dembi kuma leh aabahood dembi ku galo inkastuuna dembi uu gelin arrinkaasi meel cidla ay ku dhammaatay dabadeed waxaa dhacday in aan isqabsanay muqdisho nin korneel ahaa markaana dabaaldega 1 Oktoobar bay ahayd inuu garoonka nin kale keenay uu adigu shaqada caawa meeshaan heegan ka noqon mayside ninkan baa meesha qabanaya aniga arrinkaas waan diiday hase yeeshee ninkii wuu ii dhaartay wuxuu yidhi anaa ku tusaya ninkii warqad buu qoray uu leeyahay ama ayaa si kadisa ku soo gelaya garoonka diyaaradaha jajabinaya dabadeedna maxamed baa diyaar u ahaa inuu diyaaradda kula baxsado nimankan uu ka qaado meesha arrinkii aniga waxaa ii sheegtay marka maxkamadda nin ka shaqaynayay baa yidhi warniyo saasaa lagugu soo eedeeyey maxkamadduna dhowaan way ku yeeri doontaa maxaa alsamatar ayay gaadhay oo ahaa wasiirka gaashaandhigga guddi buu bixiyey marka niman maaragtay nimanka dowladda daba socda ah nimankii way u jeedaan arrinku inuu waxba arrin sal ahayn SNM iyo wax ciidamada Ethiopia ayna meesha ka soo degeen bas aamusnaan baa lagu dhameeyey markii aan socda awood una u lahayn arrinku markay sidaa ay ku dhammaatay waxaa dhacday SNMtu inay garoonka hargeysa soo gashay oo nin sarkaal ay ku dishoon aqaano weliba ninkaasoo nin Soomaali galbeed ahaa waxa weeye marka ayaantii labaad baa la dhigtay markaas garoonka waxaa jooga ninkii salaamada diyaaraduna ma diyaarad qalaama rogon karto ka bixi karta meel xabad ka dhacayso waa diyaarad rakaaba dadka iyo ku dilna si ninkan u macaarid kara anaga tag ku nin maxal tigilaad hadii nabadgelyada garoonka ma sugna ninna waa lagu dilo hebel baa la yiraahdaa Cabduqaadir baa magaciisa la dhahay kabtan buu ahaa Cabduqaadir Ciise arrinkaasi waxa weeye waan naqasbeen tag baa la yidhi ilaa weyla diyaaradii waa soo kacnay hargeysaan soo degnay anoo weliba ka baqaya dhinacii laga filaya dhinacan iyo dhinaca diyaaraddu hargeysa markay imanayso laba dhinac bay ka soo degtaa dhinaca cadceed ka soo baxa iyo dhinaca cadceed ku dhaxa waxayna ku xulan tahay dabayshu kolba siday tahay dhinacii kale oo cagsiga ahaa baan ka soo degay anoo markaa dhahaya halkaan ay fadhiyaan ilaa diyaaraddu markay dhulka usoo dhawaato 4 kilomitir bay fadhiyaan maalin 4 kilomitir markaa diyaaraddu waxay u jirtaa dhulka ilaa iyo 500 feet meelahaas diyaaraddu waa nin qori haystaa kugu dhufan kara xitaa iska haystee waan degnay ilaahay meeshii waxba kama dhicin waxaa badatay marka arrin ah in mar walba la yidhaha war ninkan wuu baxsan doonaa arrinkaasi afkiisa waxaa ka yidhi ninkii markaa ciidanka cirka xukumayay ninkan wuu baxsanaya maxamed sheekh wuu baxsanaya ayaan walba war baad ii keentay inay naga daaya buu yidhi markaan aad
maxamedow markaa go-aan baa gaaray marka maxamedow jabhadda SNM markaasi ma waxaa jiray weeraro ay ka fulisay garoonka diyaaradaha mise waxaa jiray madaafiic iyo waxay ku soo weerartay maaye garoonka way ka fuliyeen garoonka diyaaradaha ee Hargeysa waxay ka fuliyeen ilaa gudaha soo galeen waan markii dambena way ka carareen markii ma joogi karaan markii waa laga badan yahay hubka ay haystaan laakiin way soo galeen garoonka ninkan aan ku sheegay garoonkii ku diray ninkan Cabdulqaadir Ciise leeyahay garoonkii ku diray Soomaali galbeed buu ahaa marka way soo galeen laakiin cid sheegtaana jirin waa la qariyay diyaaradihiina iyo dhaqdhaqaaqiina markaa miyay la socdeen mise weerarkoodu waxa uu ahaa uun weerar ismiidaamina maaye nimankan way la socdeen dhaqdhaqaaqayga hawada markaan marayno mar walba raadi ay soo geli jireen iyagoona salaamayo dhahay war meesha waan ognahay waxba ciliiba ku jirtiin oo bal hadalaad ku nooshiinay meesha iskaga taga oo markaa qalabkiina iyo raadiyaha ku hadlaysaan bay dhex geli jireen هاو شو كلام فرنسي هلاي أنا حاجة سرتا سفي عم بيقول هلاي سرتا إن ديالو أي مقدسة كسر كعيسو إن إيمان السهر جيزة ولا سعودي قال بيوها إنه وحوي حاجة هير سريكوها هي إن حجاج إن وين وجل الدونا يندي يردي إن حمول كقاعدة السي الدولية هتكاهيد قاب كدواف طوبتي لكن دد بدن وحي شوي دين كران إن دولية سر قاشان لسر كولونيل محمد شيخ إبراهيم يوسف محا كاني وقت جاني إن سيرها سووا هي مدة دورية صدق كسرنا ضوضع هذا وصوب عندكم والله واحد جرى من على المعذير رهيب يلوني وتاريخنا على القرآن وما بيجي عليه مبو لله ما وحنا سمينا وما سمينا أنبا شون على الغوص القرئية وقتي هرئية وحوي واسك أمس مرة دو إلى أي قصة صار ماشي وحيد عدة دد بدن بأوجو كلي مؤجي وليس بيسارين إلى هنا إلا وإن تاريخنا القرآن لما شاء ما كرتا شيء كده بها كفايدة تاسع كانت مركا إيران حتى عن sheego wixii waagaas aan ogaa diyaaradda ayaad ka afduubtay magaalada Muqdisho waliba saraakiil baa la socday sidaan maqlay xagga Itoobiya ayaad ka soo gashay gabilay baa dul martay oo Hargeysa waa dhinac martay Djibouti ayaad degteen bal qisadaasi sida ay u dhacday iyo qaabka afduubkaasi aad u fulisay nooga waran qisadaas intaan galin waxa jirtay waa tan ku yiri garoonka SNM way soo gali jirtay Hargeysa oo dhowr jeer bay dad ku laysay oo ina ka carareen waxa jirta anaga laftigeena anagoo garoonka Hargeysa ka kacayna oo dad niman cadaan oo Ingiriis ay nala socdaan markaan Hargeysa garoonka ka kacay oo kun fiid aan haysto ayaa waxa nagu dhacday xabad madfac laga soo riday dhinaca iyo naasa hablood oo xabadu quwadeedii markaasi ay quwad jabtay diyaaradda waxa marka lugaha korkeeda meesha lugaha ay galaan korkeeda ayuu ku dhacay diyaaradii hoos bay u hoobatay waxay lumisay joogii ay haysatay laakiin ninkii Ingiriiska meesha fadhiyay wuu maqlay jugtii isaga ku dhacay markii isaga dhinaca midigta fadhiyay markii aan weydiisanay inaan emergency landing aan dhaqso u soo doono markii saliidii baa daadanaysa hydraulic ahayd waana loo diiday iyadii barbaraba waxa la madii kartay Muqdisho taga halkaas qalabkii dayactirka niman Talyaani joogtay diyaaradda dayactiray Hargeysa Muqdisho maxay ku gaaraysaa 3 saacadood way hydraulic aad u dhamaado diyaaraddu matoorku waa istaagay waxay markaa taa keentay inaan anu markaa aan go'aan gaarno ninkii markaa ila socday imika wuxuu joogaa isagoo Noori oo duuliyaha labaad ahaa Noori uu joogaa ana wadankan lagu dhagan Sweden ku dhagan waxaan markaa go'aan gaarnay inaan maaragtay aan markiiba aan ka galo toos aan Soomaali galbeed u dumaro warleeri walwal taasina waxay noo soo gaabanaysaa khadkii oo hal saac iyo bar bay ka dhigaysaa saacadii bar meeshii 3 saacadood ka ahayd Muqdisho markaan deganayna war kala aba dadkii isla dhaxmarayeen dhagax bay jireen baa la dhigay dhagax weyn garoonka dhagax iyo qarar midna ma jiro moogta waxa la diidan yahay in la maqlo oo idaacadaha BBC laga sii daayo la yiraahdo nimankii SNM waxay haleeleen diyaaradii rakaabka ee militariga iyo sahanka qaadisay saadarteed ayaa markii dambe aan go'aan aan gaaray in aan Muqdisho markii laga soo kacay ka markii laftigeeda Muqdisho waxay soo dadajisay ninkii ila socda dhowr jeer waan ka hadalnay ninka duuliyaha labaad
cabdiraxmaan cumar cosable la yidhaah isaga laftiisu korneel buu ahaa duuliyaha waan ka wada hadalnay inaan baxsanno waan iskaga tagno waddanka laakiin dhowr jeer markuu iga cagajiiday arrinkaas waxay keenay marka ayaanta aan ka soo baxayna muqdisho in la yidhi SNMtu waxay u jirtaa garoonka 4 kilomitir ninka taliyaha ciidanka cirka gala hadda waxaan war garoonka nimankii waxay fadhiyaan meel gaaban oo garoonka 4 kilomitir waa meeshaan ka soo dhacayno oo joogaan design aan soo sameynayno diyaaradda marka nabadgelyadeedu ma digi karto meesha annaga ka og baa leeyahay nabadgelyada garoonka waa inaad qaadaa saraakiishan iyo odayaashan iyo lacag markaa la waday marka waxay la socda oo ah injineerka diyaaradda Muuse Xirsi Warsame oo isagu mijira waxa ay ilmaadeen yihiin Gaboose waa habar Yunis iyo nin kale waxa ay la socda isaguna ah habar gidir oo Suleymaana ani marka waxaan ugu talagalay nimanka ila socda inaan siiyo Coca-Cola aan ku daray dawada hurdada hase yeeshee ani waxaan ka badiyay in hal iyo laba aan ku daray dhowr baan ku daray taasi waxay keentay marka in sidii daxal oo kale ay u dhadhanto Coca-Coladii ninka Muuse liila markuu laba jeer ka badi kookadii wuxuu yidhi aniga kookadani waa kooka maaragtay aan vaarid ahayn oo dhacday waxayna u dhadhamaysaa sidii daxal oo kale way iska daayeen marka nimanku anuu marka Hargeysa Muqdisho markaan ka soo kacayna waxaan la socdaa nin annagana ilaaliya oo qori wata nin maraxaan oo isbitaalada ninka qoriga waxaan uga qaaday Muqdisho qorigii marka ana haysta labadeeda lugood hoostiisu yaala markaan arkay nimankii inay soo jeedaan anigu qorigii baan qaatay waxaan albaabka ninkii fura albaabka anagu aan ku jirno way igama nabadgelayaan qorigan baan ku dhufanayaa baan xabadaha ku jiro laakiin ninkii ayris ka fadhiyo meeshiisa aan kursigiisa ka dhaqaaqin amaan biga helaya nimankii meeshiisa iska dhufay wax dhibaato ima keenin orlaal iyo halkaas aan dul marnay gebeli baan dul marnay markaan u dhownay Jabuuti ayaan waxaan weydiiyey waa diyaaradda waan soo lunnay roob baa ka dacayay Berbera iyo Muqdisho iyo Hargeysa waa cirku wuu xirnaa waa degi kari weynay noo ogolaada marka waxay yidhaaheen diyaaradda nooceeda sheeg diyaaraddu Antonov 24 waaye waana ruush baa sameeya laakiin aan waxaan diyaaraddii Somali Airline diyaaradda la mid ah jirto isku qaaday yihiin oo la yiraahdo F27 marka waxa weeyaan hay'adda duulimaadyada ee dalka Djibouti kuwad la hadasheen hay waan gartay waxaan F27 waxay yiraahdeen standby bay sug baa leeyli waxay la hadleen Muqdisho waxaa leeyli Hargeysa iyo Berbera daruur ma laha waa clear waa nadiif wax daruura ma leh roobna kama da'ayaa leey waynu ugu soo noqdeen wuxuu war Muqdisho la hadalnay warka aad sheegaysid iyo kan ay Muqdisho sheegayso waa kala labo waxaa leeyli meesha wax roobna kama da'ayo daruurna ma laha cirka Hargeysa iyo Berberaba meelaha kala tag baa leeyay markaas imika diyaaradii korkiina taagan tahay shidaal lagu filan ma leh xitaa Hargeysa inaan ku noqono geyn kara Istanbul bay marka labaad yiraaheen marka madaxweynaha Xasan Guuleed Abtidoob uu maqnaa Baghdad buu kula shirayay Maxamed Siyaad Barre shirka Carabta waxay dabadeed bay yiraaheen soo dhaadhac baa leeyay clear to land baa leeyay waa imika waan ogolaanay inaad garoonka soo degtid garoonkii markaan degnay waxay arkeen diyaaraddu inay diyaarad military tahay markiiba waxay kiciyeen diyaaradii Phantomka ee Faransiiska xagga dambe gees u dambaysa meesha u dambaysa istaaga leeyahay soo u soo dhawaanayna terminaalka meeshii baan istaagnay waxa weeye waxa leeyahay passenger-ka saaran diyaaradda u dalbada leeyahay maartay furun iyo maartay Coca-Cola wax aynkaas wixii baan u dalbanay laakiin iyagu waxay ka reebeen ujeeddo kale oo maartay ninkan Abdullaha codkiisa inay codkayga duubaan beeraan waa iska fahmay markiiba waxay dabadeed meesha Kureyl bay ahayd waxaan noo yimid ninkii ra'iisul wasaaraha oo meesha kusimaha ahaa intuu madaxweynuhu maqan yahay wuxuu niyo maxaad halkan ka soo doontay wiil maxaad waxa ku dhaweeyay Ethiopia maxaad Ethiopia u degmiyay waxaan Ethiopia ma degayaan waxa weeye waa la iga turjumaya Ethiopia afkari xabashka ku hadla أنا أرسومانا كوا الله يبارك لكن إذا كنت دولة جورياتي وروق عبان لكن ده الصومالياتي لا يوم الترجمة يعني مركا إذا كان مجالي ودي سنة يبارك ماشي أنا كم جري كلوا ما تبغى بيجا يستعمل وحي كل نقط ديارنا
taasi dhibaato weyn bay ii keeni lahayd haddii nimankii diyaaradda saarnayd hadday qaban lahaayeen albaabkii xiran lahaayeen waxay odhan kari lahaayeen safiirka soomaaliya ha noo yimaado dowladda jabuutina xaq uma laha diyaaradda gudaheeda inay gasho waa diyaaradda soo afduubay xaq uma laha waxay la mid tahay safaaradoo kale la mid tahay waxay dabadeedna soo dhaadhacbaali markii anu intii soo dhaadhacayniin baan la hadlay nimankii ila socday war niyo maanta waa fursad wixii anu hadda aan ka soo cararay meesha waad ogtihiin siday tahay fursaddan ka faa'iidaystana soo mari mayso dib idii soo mari mayso dowliyaha labaad oo cabdiraxmaan ahaa iyo ninkii muuse ahaa muuse xirse warsame reega boose iyo ninkan maxamed boor dheere la yidhaah saddexdoodiiba waan la hadlay waxaa niyo ka faa'iidaysta yaan loo noqon waxba la imaan maqla muuse yidhi anaa ku raacaya muuse markii hore wuu baqaayay wuxuu isdhahayay malaha talow ninkan waa la xelin doonaa hadhow daldalaad baa lagu xukumi doonaa xabad alag tukan markii meeshii aan soo degay labaad waxaan idhi war ninka caynkaasa injineerkiina wuxuu rabaa inuu magangelisaasa weydiiso uu ila socda waxaa la yidhi ku noqaa la yidhi mar saddexaad bay yidhahen ku noqo diyaaraddii baan ku noqday markaa waxaa ii yimid nin aan u malaynayo inuu ogaadeenaya ninkii baa niyo maanta baa khalad weyn baad samaysay khaladkaan sameeyey muxuu waxaa war niyo anuu korneel baan ahay xaafaddan deganahay roobku biyuhu waa soo dayaa jiingadu biyuhu way soo daysaa waa u sheegay taliyaha ciidanka erka wax laba lagama qaban waagii hore waxaa nala siin jiray markaan diyaaradda kacaynayno lacag quraaca aan quraac iyo aan waxaa ku soo iibsanno oo ilaa 2,000 shilin ahayd lacagtii xitaa wuu goosan ninkii intaasoo jeer baa liigu eedeeyey baan idhi in maaragtay SNMta aan la shaqeeyo oo SNMta aan soo guro oo marka ma waxaa sugaya intii xabad liigu dhufan lahaa baan waxaad leedahay adigu waad naceebaysa maaragtay amba daaroodhaan ahaado amba si kale ha u dhaha isagoo markaa u jeedee anigu nolosha naftaydaan la cararaa baan idhi anigoon qofna aan maaragtay gacan baa siina aan leeyahay ilaahay baa beli ila xisaabtamaya darajo qof siin karta male nolol qof siin karta male ilaahay baa yaxaya saa darteed baa meesha aan iskaga tegay meesha karaamana kuma haysto addoonsi aan ku jirana uma adkaysan karo addoonsiga soo dhaadhacbay ilaahay ninkii kula socdana ha yimaadaan ninkii muuse anigu shadadii aan qaadana waan degnay labadii nin ee kale saddexdii nin ee kale diyaaradday ku hadheen 3 maalmood dabadeed ayaa markaa nin kaloo duuliyaha laga keenay waa ninka imika aan kuu sheegayo degan waddanka Norge markaa Jabuuti magangelye ma idin siisay dowladdii Jabuuti eed u sheegteen inaydaan Muqdisho ku laaban karaynin oo halis aad wajahaysaan marka 3 maalmood dabadeed waftigii baa yimid markaa waftigii in Xuseen la yiraahdo oo wasaaradda gaashaandhigga bedelay waxay ahayd maxaa cali samatar iyo 4 janan oo kale oo maxamed xaaji masalle uu ku jiro jananka 4 janan oo kale oo markaa weydiisanaya ninka duuliyaha iyo ninka farsamayaqaankaba lagu soo celiya raadiyan aanu markaa ka dhegeysanayna iyo TV qolkii aan markaa nala geeyey hoteelkii anagu Soomaali iyo Jabuuti waa walaalo waxba maaragtay naga xumaan maayo duuliyahana waa la noqonaynaa buu wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliya waxaa ii yimid markaa la taliyaha madaxweynaha Xasan Guuleed oo nin Ingiriis ah wuxuu yidhi anigu kama socdo Scotland iyo dadkan jaajuusinta anigu la taliyaha madaxweynahan ahay buu yidhi wuu i waraystay dhibaatadii baan u sheegay wuxuu yidhi waxba kaa xumaan maayo waxba ha welwelin lagu celin marka nimankan reer galbeed xaraan dowladda Jabuuti inaan dibna loo celin labadayadaba waxaana la geeyey markaa meel xero military oo lagu ilaalinayay waxaana loo soo diray oo safiirkii Soomaaliya uu soo diray naag xijaaban oo bistoolad ku haysata halka ay kalkisha naagtii say u soo dhaaftay maqal waqti maghrib ay ahayd anoo markaa maghrib tukanayo oo muuse uu la hadlayo naagtii maxaa adigu ahayd u dhahay unba ciidankii ordaya soo galay naagtii baa kor loola booday bistooladii wayba ka dhacdayba in yar baan ku siganay inay nagu tiriso markaa dabadeed waxaa noo yimid ninka United Nationka ka socda
ويري مارتي ودنيدين ربتين وما حد يقول فيه وحنا ويدينا واحد يعني قدرت ايش كلام ايوه وقدرت يجيبان دي ادو ميلتري باتاي يقولي نبو حامدو وافريكانا ميلتري باتاي شغال اظن هو ميلتري بيقولي شغال يدو ميلتري بان لكن انا waxaan ka daafacayaa dibadda gudaha ma aha baan gudaha bilis ba kula shaqo dadkaaga inaad aad ku jeesatidna annaga islaam baan nahay waxa la ogol yahay ma aha baan adigu ma aqaanad international kuma taalmaan laakiin ani hadii la ii diro dawlad jaara la dagaalaya meelo kale la dagaal ugu jira wataa waa muhiimadaydi aan aadi lahayn baan waa tagaya laakiin dad raagiida in la garaaco oo diyaarado maaragtay niman South Africana la soo kireeyay ayaa garaacay Hargeysa iyo kuwa Soomaaliya isku jiraba baabuurtii la gurusalada ay dadku lahaayeen kuwana wata nimanka South Africaanka marka waxaan ma lici kartaa anu inaan dadkayga waxayo shaqa aniga maaragtay aan ku dhaartayna ma habaareen inaan dadka rayadka ah aan maaragtay anigu aan wixii lagu leyn lahaa aan keeno anigu hubkii amba lacag amba dawaha noqoto saadagtay bay ugu kalsoonayeen inaan meeshaan imaado wixii weydiiyay markaasi wadanadeed jeceshahay inaan aad tagtid duun anu markaa waxaan weydiistay Jarmalka Canada iyo Australia hase yeeshee muddo 3 maalmood dabadeed markiiba waxa soo jawaabtay wadanka Sweden iyadoo sharcigii warqadii sharciga ay ugu siiyaan ay soo tuureen iyo tigidhkii aan ku tagi lahayn Stockholm waxaan nabadgelyo awgeed uma joogi kartid waadiga arkay baa leeyahay gabadhii safaaraddu ay soo dirtay maxay ahaydeen beeshiina gudaha soo gashay had in yar ku sagateen marka saadagteed waa inaad samaanta ka dhuuftin bare 7 June bay 9 qaaramid waa bil marka 9 May ilaa 7 June ma ka soo dhofay marka Djibouti oo waxaan mid Stockholm waxaan badan baa jiray oo maxay ahayd dadka kalifay dadka maartay in la leeyahay niman badan oo madaxa oo jarana ninkan xukumayay maartay Hargeysa waxaan ayaanta aan ku sheegay aan joogay maartay Hargeysa intuu wuxuu igay Hargeysa kala marka soo cunto soo dhiga dooriyaha sare wuxuu rabaa marka inuu ituso dadku say uga baqayaan albaabka xirada markaan galeynay ninba sarkaal bijiraha ayaa xeeganka ahaa wuxuu waraawi booyadii biyaha marka soo booyadii taliye waxay biyo u shubay reer bay u dhaaminaysaa nin sarkaal oo soo noqon hadaan booyada waaye buu ilaa iga salaayay soo wali taymaka qabrigaaga sii qodo buu yiri sii qodo qabrigaaga qabrigii aan kugu caasi lahaa hadii booyada oo ku jirta xerada aan waaye buu أنا وياه بنكال سيدي والله يا فلانتي كابو يسميه جل في قلبه وحان تقولي مركا حلدا تاجيرة من بمركا حكومة هي مرة بمجي يساعدين هالشيء لكن بعد أركي استعدادكم سيدا يقول لي تاني قال لي بقول ركوع يعني تلبوه الركوع اللي كولا نكا جاكا سوى وربحس يعني مركا تعالوا من ولا كرا إن عن تلباد وفاني إلهي عاد الركوع عديد وواحد كبار الأفضل wax carara amba wax la xiro amba wax meesha ka carareen aniga diyaaradu waxay ula duuri jireen maaragtay maxamed qabariya leeyla 5 sano la xiro reerkiisu waa 5 sano bila dambi shatana dabadina wala iska soo day aniga taydu baan galin ma ahane cornel waadigii magangaliyada ka helay Sweden bilka bacdi Stockholm lagu geeyay dabcan qoys baa joogay Soomaaliya qoyskaaga iyo dadkii eheladaha arintii diyaaradda aad la goosatay saameyn ma ku yeelatay way ku yeelanaysaa laakiin hooyada Allah una xariistay aniga inantaan qabo waa Saacid Muuse Jibriil Bakarawi hooyaday markii ay waan u sii sheegay markii aan baxayay kama aan qalin waan u sheegay waxaan rooyay meesha ma joogi karo way fasaxday markii waan guud dhacayna iska socotay macnaha bilba meeshii joogay horta gurigaan deganay waxa guri ay dawladdu leedahay 4 saacadood baa loo qabtay oo leeyahay ka guura alaabta waqti xitaa lama siin alaabtii banaanka iska dhigteen sidii way uga guureen ayaantii 3-4 maalmood intii ay Djibouti maartay ay waawaanta ay socotay isla markiiba hooyay waxay saartay caruurtii iyo gabadhiiba Djibouti bay u dhoofisay Djibouti bay ka dejisay islaan habartay oo ilaa imika degan meesha islaantii bay ka dul dejisay saasay ku badbaadeen ma ana lama deyn lahayn
markii dambaad waxay leeyihiin ninkaa waxa kiciyaba dee waa inanta uu qabo weeye bay dhilaayeen laakiin ilaahay uu ka badbaadiyo markiiba way ka dhoofeen meesha si nabada hagaag ficilada aad ku kacday ciidamada militariga marka ama qofka ciidamada ku jira marka uu ka soo horjeesto dawladdii uu shaqaynayay ciqaab adag buu la kulmaa dabcanna waa lagu sheegay intii ciidamada aad ku jirtay ciqaabta iyo shuruucda militariga ma u malaynaysaa waqtigaasi inaad khalad aad samayso oo dawladdii aad u shaqaynaysay inaad khaayintay may anigu ma khaayimin markaan ka tegay Djibouti ereyga imika aad leedahay baa nin askariya ay war ninka iska ilaali Faransiis buu ku yidhi ninka khaayinka ana Faransiiska waan aqaana inta sida uu eegay markaa anu khaayin mi sababtoo maxaan khaayin ku ahay khaayin waxaan ku ahaan lahaa wixii aan u dhaartay markaan jabiyo anigu uma dhaaran in dad shibile la dilo anu nin diinta yaqaan baan ahay waa garanaya wixii khalad ah aakhirada lama weydiinayo cagsi waxa aakhirada la weydiin karaa maxaad intaasoo dhan aad u joogto sugaysa taas ayuu ilaahay weydiin karaa hadda qof kasta wuu maqlayaa oo hawadii ka maraya wadaad intaasoo jeer baad ka tagtid meesha maxaad sugaysa taa laftigiisa wuu ilaahay weydiinaya ima weydiinaya ilaahay maxaad maaragtay aad uga carartay waddanka oo diyaaradda ula baxsatay diyaaradda waxaa loola baxsaday wuu og yahay ilaahay bini'aadamku laakiin ma oga bini'aadamku nin kasta wuxuu doonuu sheegi karaa uu sharci karaa ilaahay baana quluubta ku jira ilaah baana og hortaada imika waxaan ka leeyahay ilaahay wuxuu weydiin karaa maxaad u qaadaysay hubka iyo lacagta iyo dawada taakulaynta maad waa hore ka tagtid taasuu weydiin karaa ilaahay laakiin ima weydiinayo waxbaad jebisay waxba ma jebinaano waddanna ma khayaanin dad islaamna ma khayaanin cagsi dadka intii kartidayda ah reero badan baan ka soo guray 15 20 qof oo isla socota ay sidaa la iisoo eegi jiray hargeysaan ka soo daadgureynayay taas baa dadku dad badan ay ogyihiin shilina kama qaadan dadkaasi inta badanna ma aqoon qaar aqaana way jiraan laakiin inta badan ma aqoon aniga billaahi baan u soo qaaday iyo inay xaq u leeyihiin oo xaqooda ay tahay diyaaradda inay raacaan mana baqayn waa lagu dilay waa lagu eeday waa lagu eedeeyay waa tahay daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa waraysi aan la yeeshay duuliye sare gaashaanla sare maxamed sheekh ibraahim yuusuf oo ka tirsanaa ciidamadii cirka ee Soomaaliya waxaana uu waramayay isagoo ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden aniga iyo akhyaarta kalaba tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo